wixii ay la yimideen ay markaa inkireen oo markii dambe ay ku talagaleen inay hashoo dhan markaa dilaan, hasha inay boqon jebiyaan ayaa markii dambe ay ku dadaaleen ama arrintaa ayay ku dhaqaaqeen sida ilaah tilmaamay subxaanahu wa tacaala. sababtu waxay tahay waa beenin alle ay beeninayeen, waa inkiritaan ay markaa inkirsan yihiin waxyaabaha iyo xaqa markaa loo tilmaamay. hashii la yidhi ha taabanina, dhibaatana ha gaarsiinina ayay mashaageeyeen, mashaakil ayay markaa gaarsiiyeen hashii. waxaa u soo baxay ayaa la yidhi qoomka ayay kamida midka ugu nasiibka xun, ninka ugu shaqisan ayuu ahaa Qadaar bisaalis ayaa la dhihi jiray magaciisa. sidaa darteed ayaa ninkaa u soo qumay inuu hasha markaa dilo ama boqonta uu markaa ka jebiyo. sidaa ayuu markaa u soo baxay ninkaa nasiibka xun ee nasiib darada markaa ay ku asiibtay. ilaahay asagoo tilmaamaya subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fanaadow saaxibahum, waxay u yeereen ama ay u naadiyeen saaxiibkoodii waa kii hasha dili lahaa, fatacaataa facaqar, asagana waa gaaray oo wuxuu isi siiyey ama soo qaatay aaladii uu ku dili lahaa, waana boqon jebiyey. boqonta ayuu ka jebiyey hasha, weliba intuu ku tuuray ayaa markay dhacday waxay ku sameeyeen gowrac. sidaa ayay yeeleen fatacaataa facaqar, waa boqon jebiyeen. ninkaa waxaa la qaybsaday ayaa la yidhi arrintaas 8 kale oo ayaga markaa ka mid ah. 8 qofood oo kale oo ayaga markaa kamida ayaa sidaa yeelay. ilaah asagoo ka hadlaya arrintaa wuxuu dhahay walaqad arsalnaa ilaa samuuda akhaahum saalixa, samuud waxaan u dirnay walaalkood saalixa an icbudu llaha, say ilaahay u caabudaan. faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun, waxay noqdeen 2 qole oo markaa doodaya. qaala yaa qawmi lima tastacjiluun, wuxuu ku yidhi qoomkayow maxaad xumaanta u degdegsiya dalbaysaan xumaa wanaaga horteeda, maad istikfaar iyo dembi dhaaf alla weydiisataan lacallakum turxamuun. waxay dhaheen adigaan ku baasaysanaynaa, abaabta waxa noo keenay waa adiga, mashaakilka waxa noogu wacan waa adiga iyo dhiman macak waxa micigaaga ahaaday, baasaysigiina alla agtiisa ayuu ahaaduu yidhi bal antum qawmun tuftanuun, laakiin qoom fidnaysan ayaa tihiin. wakaana fi lmadiinati 9 rahtin, waxaa ku sugnaa magaalada 9 oday iyo 9 baqadiid oo yufsiduuna fi lardi, arlada halaynaysoon wanaajinayn, arlada ayay xumaynayeen. hashaa dadkii dilitaankeedii ka wada qayb qaatay waaye. markay hasha dileen ka gadaal ayay ku tashadeen saalix laf ahaantiisa inay dilaan. sidaa darteed ayuu ilaah yidhi magaalada 9 rahtin, 9 oday ayaa ku sugnayd oo arlada fasahaadinaysa, fasahaad ku socota, xumaan iyo abaabul xun ku socda oo aan marnaba wanaajinaynin. hashaa dhibaatada ayay gaarsiiyeen, wayna boqon jebiyeen. weliba hashaa mar allaala markay falaasta ku dhufteen, weliba Qadaar ayaa la yidhaahdaa fatacaataa facaqar, asaga ayaa markaa ku dhuftay. intii kale seefahooda ayay kula tartameen. canugtii yariista ahaa ee markaa ay dhashay hasha ayaduna inay dileen ayuu qowl tilmaamaa, midna wuxuu tilmaamayaa inay ka fakatay, weliba inay carartay ayay tiri yaa rabbi ayna ummii, ilaahayow aaday hooyaday. intaa ka gadaal dhagaxii iyo meeshii ay ka soo baxeen ayay markaa ku laabatay. ole waxay leeyihiin ayada laf ahaanteeda way dileen, ilaah ayaa yaqaana xaqiiqada sida ay tahaye. dadka noocaasa waxay ahaayeen dad khasaaro iyo hoog iyo dhib markaa uu ku dhacay. mashaakil adag ayaa markaa asiibay bacdamaa hashii alle ay dileen, bacdamaa hashii ilaah ee loogu talagalay inay kuwaana qaataan ay boqonta ka jebiyeen. mashaakilka ayay markaa la yimideen qoomka. haddaba mar allaala markii sidaa ay sameeyeen oo hashaa cibrada iyo calaamada loogu talagalay ay dileen oo ay boqon gooyeen, ayaa markii dambe waxay ku talagaleen ama ay sameeyeen inay saalix laf ahaantiisa dilaan. waqaaluu taqaasamuu billah lanabayatanahu waahlahu, asaga iyo ehelkiisa ayaan u wartamaynaa ayay dhaheen. uma lanaquulanna, intaa ka gadaal markaan habeennimo dilno ayaan weligiisa waxaan ku dhahaynaa maa shahidnaa mahlika ahlihi wa inaa lasaadiquun, anagu goobjoog maahayn mana xaadirin ehelkii markaa dilay, anaguna saadiqiin ayaan nahay. wamakaruu makran, dhagarfal ayay la sameeyeen. wamakarnaa makran, anaguna waa dhagarfalnay ayuu yidhi ilaahay. wahum laa yashcuruun, ayagoon markaa ogeyn
ayagu waxay ku talagaleen inay dilaan saalix. dhagar noocaas iyo makri noocaasa ayay la yimideen. ilaahayna wuxuu doonay inuu ka celiyo wahum laa yashcuruun. tii ilaah ayaa mar kasta soconaysa. fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim. war fiiri sida ay noqotay ciribta makrigooda. dhagartii ay la yimideen ciribteeda say noqotay. fiiri annaa damarnaahum, anagu waa halaagnay oo waa dabagedinay ayaga iyo wa qawmahum ajmaciin, qoomkooda dhammaantoodba. fatilka buyuutuhum khaawiya, taasi waa guryihii ay deganaayeen. way soo hoobteen, alla ma dulmin. waa bimaa dalamuu, ina fii dalika la aaya liqawmin yaclamuun. taasna aayad iyo cibro ayaa qoom oo garanayo cilmi leh ay ugu sugan tahay ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. haddaba reer samuud mashaakilkaa iyo dhibkaasay la yimideen. hashii loo soo bixiyey cibro ahaan iyo calaamada loogu talagalayna sidaa ayay boqonta uga jebiyeen oy markaa u dileen. dadka dhaalimiinta mar walba aayadaha alla kuma caqli qaataan. waxa uu rabbi u diray ma fuliyaan. wuxuu rabbi u diidayna inay ku dadaalaan samaynteeda ayay jecel yihiin. ilaah asagoo noo tilmaamaya arrintooda wuxuu yidhi, mar allaala markuu saalix yidhi dhaafa dhulka ha daaqdo, xumaan ha gaarsiinina, yuusan cadaab qariiba idin qabanin. facaqaruuha, way boqon jebiyeen oo boqontay ka jebiyeen hashii. waa dileen, macnaha way gowraceen. faqaala tamatacuu fii daarikum, asagana wuxuu yidhi waa saalixa isaga raaxaysta guryihiina 3 ayaamin, 3 maalmood. daalika wacdun gayru makduub, waa yabo iyo ballanqaad mid la beeniye aan ahayn. waa yabo aan la beeninaynin. waa ballanqaad alla idinkugu talagalay guryihiina 3 maalmoodtaa ka gadaal cadaab dhow ayaa idiin imaan doona. sidaa ayuu dhahay ilaah subxaanahu wa tacaala. ilaahay mar allaala markuu tilmaamay fanaadow saaxibahum fatacaataa facaqar, waxay u waceen saaxiibkoodii. waa qadaar bisaalise, wuxuu ku dili lahaa ayuu gaarow soo qaatay. waa boqon jebiyey. ilaah wuxuu yidhi intaa ka gadaal, innaa arsalnaa calayhim sayxatan waaxida, waxaan u sooniya fakaanuu ka hashiimi lmuxtabir, waxay noqdeen burburka iyo moorada jabjabkeeda oo kale. iyo xaaladooda iyo sida xaaladoodu ay dhacday iyo wixii ay ku dambeeyeen ayuu yidhi. wafii samuuda, reer samuud dhexdooda qiso cajiib badan ayaa ku jirta. reer samuud ummadda uga sheekay ayuu yidhi ilaahay. wafii samuuda id qiila lahum tamatacuu xataa xiin, ilaa waqti raaxaysta ayaa la yidhi. facatow can amri rabbihim, rabbigood amarkiisay ku xadgudbeen oo ay diideen. faaqadathum asaaciqa, waxaa qabatay qayladii. wahum yanduruun, ayagoo fiirinaya. fama istataacuu min qiyaamin wamaa kaanuu muntasiriin, waxay awoodi waayeen inay istaagaan iyo xataa inay isu gargaaraan ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. inay isu gargaaraan ayay markaa awoodi waayeen. guryihiina ku raaxaysta 3 ayaamin, 3 maalmood isaga raaxaysta guryihiina ayaa markaa la yidhi. mar allaala markii ilaah subxaanahu wa tacaala uu u soo diray kuwa cadaabka iyo waxyaabihii markaa loogu talagalay iyo hashii loo soo diray oo hashii ay dileen oo dhibaatada ay gaarsiiyeen, ayaa haddana waxay u qasteen inay saalix markaa dilaan. saalix inay dhibaato gaarsiiyaan ilaahay ayaa ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala. waxaa lagu yidhi 3 maalmood raaxaysta. maalintii koowaad waxaa lagu tilmaamaa maalin khamiisa inay markaa ahayd. wejiyaalkooda musfar ayuu noqday ayaa la yidhi. maalintii labaad maalin jumcaha ayaa lagu sheega, wejiyaalkoodu waa uu gaduutaa la yidhi. maalintii 3aad waa maalin sabdi ahee, wejiyaalkoodii waa madoobaaday. maalintii xigtayna cadaabkii ilaah ayaa u yimid subxaanahu wa tacaala. cadaabkii ilaah ayaa u yimid raaxaysta guryihiina 3 ayaam. dalika wacdun gayru makduub. falamaa jaa amrunaa, mar allaala markuu amarkeenii yimid, najaynaa saalixa, saalix ayaan badbaadinay. iyo waaladiina aamanuu macah, intii asaga micigiisa la rumaysay raxal naxariis xaggeena ah ayaa ku badbaadinay ayuu yidhi ilaahay. iyo khisyigii maalintaa jira العزيز سبحانه وتعالى. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، إن ألالا انتي ظلمسوا أيك من أهل الصيحة دي قيلدي أيا قبطي. جبريل أيا الله صدره المر أيا اللي وقيلي فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
waxay noqdeen kuwa guryahooda ku kadkaboota ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. guryahooda ayay jaasimiin markaa ku noqdeen kaan lam yagnaw fiiha. waxaad u malaysaa inaysanba ku sugnayn guryaha. alaa ina samuuda kafaruu rabbahum. samuud rabbigood ayay ku kufrisay. alaa bucda lisamuud. fogaasho ayaa samuud u sugnaatay buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. fogaasho ayaa markaa u sugnaatay qoladaas. sababtu waxay tahay bacdamaa diintii ay ka fogaadeen ayuu alle ka fogaaday. bacdamaa xaqii ay ka fogaadeen ayuu ilaahay naxariistiisii ka fogeeyey. sidaa iyo dhibkaa ayaa ku dhacay. facaqaru naaqa. hashii ayay gowraceen. wacatow can amri rabbihim. rabbigood amarkiisana way ku xadgudbeen. waqaaluu yaa saalixu. waxay dhaheen saalixow adiga ku beeninay hashaadiina dilnaye la imow bimaa tacidunaa in kunta min almursaliin. waxaad noo yaboohaysa keenba haddaad mursaliinta ka mid tahay. hadalka iyo qaylada badan intaad naga dhaafta cadaabaa jira. alla idin halaagaaya. hadalkaaga hadduu sidaa u batay i'tinaa bimaa tacidunaa. noola imo wax allaala waxaad noo yaboohayso cadaaba in kunta min almursaliin. kuwa la soo diray ee mursaliinta haddaad ka mid tahay ood barun sheegayso keen ayay dhaheen cadaabka waxba ha reebanin ee keen ayay dhaheen. faaqadathum rajfa. qayladii ayaa qabatay iyo ruxashadii. faasbaxuu fii daarihim jaasimiin. guryahooda ayay ku kadkabooteen ayuu yihi ilaah subxaana wa tacaala. dhammaantood waa lagu qayliyey. hal nin ayaa ka fagtay ayaa la yidhi oo asagana markaa xaramka joogay. waa loo sugay markuu ka soo baxay. waxaa asiibay wixii ayaga markaa asiibay. sidaa darteed ayuu nebi saalix ka jeestay. fatawallaa canhum. xaggooda ayuu ka jeestay. waqaala yaa qawmi. wuxuu yidhi qoomkayow laqad ablagtukum risaalata rabbii. waxaan idin soo gaarsiiyey risaalata rabbii. rabbigay risaaladiisa. wanasaxtu lakum. waan idin naseexeeyey. walaakin laa tuxibuuna annaasixiin. laakiin kuwa naseexeeye idinkuma jeclidiin. kuwa naseexeeye ma jeclidiin ayuu markaa yidhi. qoomkayow ani waa idin soo gaarsiiyey diinta. sida ilaah iigu soo dhiibaan idinkugu keenay. waan idin naseexeeyey oo wax badanaan idin wacdiyey oon xaqa idin sheegay oo wax kasta idin soo gaarsiiyey. walaakin laa tuxibuun. laakiin idinka kuwa jecel ma tihiin kuwa naseexeeya. aakhiru zamaan waxaa la gaari doonaa qoom aan isu naseexaynin. dadka naseexeeyana nacad sida xadiiska markaa tilmaamay. sidaa darteed ayuu nebi saalix qoomkiisa uu sidaa ku yidhi. markuu rabbi ka sheekaynayna wuxuu dhahay wa amaa samuudu fahadaynaahum. samuud waan hanuuninay. xaqa ayaan u bayaaninay. waddadii hidaayada ayaan tusinay. waddadii jannada ay ku gaari lahaayeen. wa amaa samuudu fahadaynaahum faاstaxabu alcamaa cala alhudaa. arag la-aantii iyo baadidii iyo cadaabkiibay hanuunkii ka doorteen. faaqadathum saa'iqatu alcadaabi alhoon. intaa ka gadaal waxaa qabtay qayladii cadaabka dulliga ahaa. waana bimaa kaanuu yagsibuuna. waxay ayagu kasbadeen sababteeda. wanajayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun. intii rumaysay oo rabbi ka cabsatayna waa badbaadinay. sidaa darteed ayaa qoomkii saalix sidaa xaaladoodu noqotay. saan soo tilmaanayna cadaabka waa lagu camimay. cadaabka axad loo dhaafay ma jirin. cadaabka kulligood ilaah waa u simay. in allaala intii inkirtay oo markaa beenisay alla wuxuu badbaadiyey keliya in allaala intii asaga raacday oo markaa rumaysay. intii rumaysay raacday ayuu ilaahay badbaadiyey oo dhibaatada iyo khizyiga iyo hooga maalintaa jira ilaahay uu ka koriyey subxaana wa tacaala. maca daalika dadka muslimiinta ah waa inay aad u dadaalaan. sidaa ayuu kula hadlay ayagoo meydad ah. faasbaxuu fii daarihim jaasimiin. guryahooda ayay ku kadkabooteen oo naftu ay uga baxday. ilaah markuu tilmaamayay waa lagu qayliyey. mar allaala markii lagu qayli oo rashfadii ay qabatay wahum yanduruun fama istataacuu min qiyaam. qayladaa lagu qaylinayo waxay awoodi waayeen inay qiyaamaan. inay joogsadaan oo ay ka cararaan. wamaa kaanuu muntasiriin. kuwa isu gargaari karana way ahaan waayeen. midkaan qayladu markay dhegihiisa soo gaartou sii dhacaayo oo meesha ku sugan yahay. midkaan kale waa u jeedaa inuu ka istaaga uu ka cararo xataa way awoodi waayeen. fama istataacuu min qiyaamin. qiyaam iyo istaag ayay kari waayeen. wamaa kaanuu muntasiriin.
kuwa isu gargaara oo midkoodkan kale u gargaarana waa noqon waayeen ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. haddaba bacdamaa xaaladdu ay sidaa tahay oo qayladaa ay qabatay guryahooda ku kadkabuuteen, nebi saalix oo ka soo jeestay xaggooda oo dhahay tolkeeyow waa idin soo gaarsiiyey risaalada rabbigay, waan idiin naseexeeyey, laakiin idinka naseexada ma jeclidiin. waxaa la mid ah dagaalkii beder markuu dhacay, nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ka adkaaday gaalada 70 nin ee ugu waaweynaa madax adeegnimada xagga gaalnimada, abijahal iyo raggiisa markaa ka mid ahaa. inta la soo qaaday meydadkooda iyo baktigooda ayaa gorofkii iyo ceelkii ku yiilay beder lagu daadiyey. mar allaale markuu nebigu damcay inuu ka soo tago meesha ayuu kor istaagay qabrigii ay ku jireen ama ceelkii gorofka ahaa. wuxuu dhahay wax allaala wixii rabbigay ii ballan qaaday oo xaq ah waa helay. ilaahay wax allaala wuxuu ii yaboohay oo dhab ah waa helay, ee idinku ma hesheen wax allaala wixii rabbigiin idin ballan qaaday oo xaq ah. sidaa markuu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam, cumar ayaa dhahay rasuulkii allo ma waxaad la hadlaysaa ajsaam iyo jirar aan ruux lahayn? rasuulku wuxuu yidhi wallaahi way maqli og yihiin, idinka way idinka maqli badan yihiin haddeertaan aan la hadlaayo, laakiin ima ajiibi karaan ballanqaadkii ilaahay iyo nasrigii iyo guushii uu ii ballanqaaday waa helay ayuu dhahay nebiga. war idinka cadaabka iyo waxyaabaha laydiin ballanqaaday ma hesheen? sidaa ayaa marka la leeyahay. maca daalika dadka muslimiinta ah wax badan ha aaminaana ilaahooda, ha ku cibro qaataana qisooyinka iyo arrimooyinka ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala, si ay adduun iyo aakhiro wanaag u gaaraan. samuud ilaahay sidaa ayuu u halaagay. ilaah markuu tilmaamaya halaagooda wuxuu yidhi fa amaa samuudu fa uhlikuu bitaagiya. taagiya ayaa lagu halaagay qayle xadgudubtay oo tankooda dhaafsiisan ayuu rabbi u soo diray subxaana wa tacaala. sidaa ayaa markaa lagu halaagay. wa amaa caadun fa uhlikuu biriixin sarsarin caatiya. reer caad ayaa soo haray, ayagana waxaa lagu halaagay riix iyo dabayshaa oo weliba madax adag. alla waa u soo diray oo waxaa korkooda loo soo diray 7 layaalin wa 8 ayaamin xusuuma. waa 7 habeen iyo 8 maalmood oo isdaba joog ah oon kala go' lahayn ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. intaa ayaa korkooda lagu soo diray. qoomkii ayaad arkaysaa ayagoo legdan oo baktigooda meesha yaalo, aad u malaysa laantimireed ama geedtimireed markaa soo dhacay. haddaba dadku waa inay kuwaana qaataan arrintaa, ayna ogaadaan qisooyinka iyo dhacdooyinka in loogu talagalay inay noqdaan cibro iyo shay lagu caqli qaato. haddaba nebi saalix iyo qoomkiisa arrintaa ayaa kala dhex martay. waa loo diray, xaquu u sheegay, waa diideen, way aamini waayeen. rabbi ayay ka codsadeen calaamadii ayaa la tusiyey, waa inkireen. haddana ka gadaal ayaa markaa la halaagay. marka dadku waa inay aada isaga ilaaliyaan. nebi saalixna ilaahay ayaa ka badbaadiyey. intaa wixii ka dambaysa nebi saalix waa uu ka tegey. waxaa la tilmaamaa inuu xaram ka tegey, meeshaana uu ku dhintay calayhi salaam. haddaba ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo, qisooyinka aan tilmaamaynana uu naga dhigo kuwa ku cibro qaata oo raaca oo ku dhaqma, xumaanta laga reebay kuwa ka taga, wanaagga loo diraynaa kuwa sameeya inuu rabbi naga dhigo ayaan rajaynaynaa. wabilaahi tawfiiq, wallahu subxaana wa tacaala aclam.